wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa waxaa lagu magacaabay gobol cusub oo ka mid noqonaya gobolada maamulka Hirshabelle oo loogu magac daray gobolka Shabeellada Sare. Gobolka cusub ee wareegtada ku soo baxday ayaa waxa uu qayb ka yahay deegaanada maamulka Hiiraan, isla markaasina si toos ah uga mid noqonaya gobolada maamulka Hirshabelle. Wareegtadani ayaa waxaa saxaafadda u akhriyay agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabelle mid muddo aad u dheer soo jiray kadib markuu garwaaqsaday inay tahay waajib dastuuri ah inay dawladda ku shaqeyso rabitaanka shacabkeeda kadib markuu wada tashi dheer in muddo ah baa la sameynayay xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan asagoo ilaalinaya waajibaadka dastuuriga ee ka saaran guud ahaan shacabka ku dhaqan dowlad goboleedka Hirshabelle iyo awoodaha buuxa ee uu siinayo dastuurka ku meel gaarka dowlad goboleedka Hirshabelle wuxuu go'aamiyay sida soo socota. maanta oo ay taariikhdu tahay 17 bisha 8 2017 waxaa gobolka Hiiraan loo qaybiyay laba gobol oo kala ah gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Sare. gobolka Hiiraan wuxuu ka kooban yahay degmooyinka kala ah Beledweyne, Feerfeer, Matabaan, Farlibaax, Ceel Cali, Halgan iyo Moqokori, waxaana magaalo madax u ah degmada Beledweyne. gobolka Shabeellaha Sare wuxuu ka kooban yahay degmooyinka kala ah Buulaburde, Maxaas, Jallaqsi, Buqa Qable iyo Burweyn, waxaana magaalo madax u ah degmada Buulaburde. haddaba waxaa la farayaa dhammaan hay'adaha dawliga iyo maamulada jira inay u howlgalaan dhismaha maamulka gobolka cusub ee Shabeellaha Sare. wareegtadan waxay dhaqan galaysaa markuu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle wana saxiixay وانا ما سنتين kadib markii wareegtada saxaafadda laga hor akhriyay ayaa waxaa warbaahinta la hadlay madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble kaasi oo sheegay in maamulka Hirshabelle burburitaankiisu ay salka ugu hayo musuqmaasuq dowladda federaalka Soomaaliya oo uu ku sheegay inay ku wado maamulka Hirshabelle. waxa uu si toos ah madaxweynaha u sheegay in ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre uu qayb ka yahay wax uu ku tilmaamay afgambi la doonayo maamulkani dowladda dhexe ee Soomaaliya. رئيس الوزراء خير waxaan xaqiiq dhab ku haynaa ra'iisul wasaare Kheyre inuu yahay ninka ka dambeeya afgambiga fashilay ee maanta Jowhar la isku dayay in si boob ah kursiga lagu qaato. waxaan ognahay Kheyre dhaqaale ayuu ku soo bixiyay, waxaan ognahay annagaanan garan oo daacad ahayn ee muddo 5 bilood ah dhawaad 4 bilood ah yani Kheyre waxa uu hortaagnaa dhaqaalihii Hirshabelle lagu taakuleeyay ee dawladdii ka horeysayba ay bixin jirtay. dhaqaalahaas runtii waxa uu ahaa wax kale kuma aynan qaban jirin xildhibaanada unbaa gudna looga dhigi jiray ayadiina sababta uu gooyay wax kale ma ahayn xildhibaanada iyo madaxweynaha yani hal iska hor keeno ay ahayd. waxay soo socotaba ugu dambeyntii haddii la arkay in ay xildhibaanadii xaqiiqda fahamsan yihiin u jeedaan waxa dhibaatooyinkii caqabada dowladda dhexe naga haya, hadda waxaa lama huraan ku noqotay oo ku qasbanaaday inuu dagaalka toos u soo galo. saakay haddii uu xaqii ay lahaayeen oo ay helayaan anigu aad iyo aad ugu faraxsanahay. laakiin waxaan leeyahay Kheyre waxaad ka shaqeynaysaa waa afgambi, adiga ku fadhiya kursi aad u jilcan, adiga ay Soomaali ku aragtaa afgambiga aad isku dayayso. waxaan ognahay sida aad ula soo hadlayso, waxaan ognahay sida aad u dhiirigelinayso, waxaan ognahay sida aad uga shaqeynayso in Hirshabelle la burburiyo. waxa soo haray waxa weeye wadamada khaliijka la yiraahdo ee aan dariska nahay inta imaaraadka carabta. inaan imaaraadka carabta annaga xiriirka naga dhaxeeya mugdi gelinaa waxay la mid tahay mustaqbalka iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed annagoo mugdi gelin. Cabdi Fataax Zaki, Bulsho TV, Jowhar.